إذن أيها الأحبة وحلنا هذا ربط إن دعاء لقى أقبله وحيابها الدعاء لقى أقبله وحكم إذا مركه لو سند فرجع أو لو سنادي نبي يوسف هو القروح بدنها لكن سينو نقانو لا طوري ولا الذي قد كردين دبتنا ولا صعتيها شيء يبستي بقر كلجا يبي قريسي امرأة العزيز لوجيه نبي يوسف مركا قريب كنوليه نكا ماشى معاملة قريسية قبل قبي علماء التفسير إلى هذا قبل قروح بدن بيه سليخاء أي شيء وقعة أي قروح قتل مامان أي النبي يوسف هم قريسي نبي يوسف نو كنا وصله هم قري قرام معها وحيسكت ضيدي إن أي طلبته ولي بوحي تجابسي مال وكقن عكرين وكبد بادين يجيسه وغلقت الأبواب بإلهي الباب دور دم ويحد حدا وراودته التي هو في بيتها راودته وضون دون طيبة ليلي المراودة سكة واحد حدتي سكة استوي هلي لهيد وحكى له الله الشيء وغلقت الأبواب الباب بدنا ويحد لما أورن غلقت واحد حدي انت أتكين كريسي ومالو أمن دريمي كريو أيه جاكستي كدبا waxay ku tiri hayta lak soo dhow adan diyaar ku ahay bayla inta badan way adagtay gabadhu hatta haday xumaa doonayso inuu yada ka soo baxo nolosha caadiga ee la yaqaano gabadhu xishoodun baa ku jira inta badan ragga hunguri badan oo waxa kan ka yimaada laakiin tani waxay tilmaamaysaa qisadii oo cagsiya qofka hadlaya ee wax raadcaynaya ee wax doonaya oo gabadha lafteedii markaasuu diiday gabadh qurux iyo mansab iyo jamaal iyo guri fiican iyo meel hagaagsan leh weliba waa iyada sayid u ah waa addoonkeedii dhanka kale markaad eegtana waa qariib inta badan qariibkuma xishoodo meel aan lagaa garanayn markaad tagto waxaad soranaysaa dee malaa waad fasaxantahay laakiin aabba iyo adeera iyo reeruu meelahay joogaan waad sira dhudhubayaad ceeboobin baad isleedahay cidlada laakiin lama ceeboobo saxankaa maaha ama meelaan cidiba kaa garanay markaad joogto lama ceeboobo nebiyullaahi muusa nebiyullaahi yuusuf tolkii lama joogo abihii reerahoodii waa laga keenay meelaan cidina ka garanayna uu addoon yar ka yahay buu joogaa meeluu addoon ka yahay waxaan cidi garanayna buu joogaa waa dhallinyaro qofku markuu dhallinyarada yahay iyo xooggii soo dhabi jooga waa ma guursan reer ma leh oo ninku hadduu reer leeyahay de waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo wuu dhowrsanaanaya reer buu haystaa reer ma leh idan waxay yidhaahdaan meesha tan waxa yaalla dawaacu zina kullaha wixii qof ugu yeedhi lahaa inuu zina ku dhaco dhammaanteed waa nin waa dhallinyaro waa addoon oo magaca ilaashan maayo marka nolosha caadiga loo eego gabadhu iyo waa qurux badantay mansab bay leedahay iyadu sayid u ah guri cidlaa bay joogtaa iyadaa u yeedhaysa xawaalay ibn alqayim ilaa 15 mas'alo tiriyay oo leeyahay dawaacu zina ba qisada ku jira laakiin muxuu ku jawaabay qala ma'aad allah innahu rabbi ahsana mathwaaya innahu la yuflihu adh-dhalimun muxuu ku jawaabay qala ma'aad allah ilaahi baan ka magan galay buu leeyahay waxa sheegaysa معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون إلهي من مغنقر ربي جاي ماشى واي وناتشي ظالم هنا ما اللي بان مفسرين تفسير لبعض بيساران وحي ليه وحوسنا حرمين يا إلى لنا يا نين كان أبالك كله ويعني كان يمكن سوي بسدي وحكو يري ويلكا إلالي بوكو يرسا صورة إلهي كقوى الرمي أكرمي مثواه ماشا دجيني سيا وحصر كرامي بوكو يري مركا أضيقا قريقا كياني
oo kala dardaarmay reerka iyo gabadha in ninka kan si fiican loola dhaqmo idan wuxuu leeyahay nebi yuusuf abaallaawe ma ihi ninkii sidaa ii galay inaan haweenkiisa u weydaarto in xaaskiisa u weydaartaa innahu rabbii buu leeyahay innahu rabbii waa kii ii barbaariyey wa axsana mathwaaya akrimii mathwaahu waatii uu yidhiye wa axsana mathwaaya buu leeyahay degaankaygana fiicnaysiiyey marnaba dulmi maayo buu leeyahay innahu laa yuflixu الظaalimuun idan nebiyullaahi yuusuf waxaa ilaahay tusaale qur-aanka ugu dhigay ee tusaalayaasha waaweynee nebi yuusuf laynooga soo siiyey ay ka mid tahay cifada weliba cifatu lisaan iyo cifatu farji labadaba nebi yuusuf waa laga soo naqlinaya walaaladiisii wixii la ogaa ku sameeyey ee yidhi tuug buu ahaa iyo in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl ilahay wuxuu yidhi faasaraha yuusufu fii nafsihi walam yubdiha lahu xataa inuu ku yidhaahdo waar idinkaa tuuga wuu ka xishooday cifatu lisaan carabkiisuu dhowray halkana farjigiisuu dhowray markay aragtay inaanu oggolayn ayay waxay isku dayday inay kufsato inay xoogto arrinku haytan laka soo dhaaf markan xoog buu maraya waxay isku dayday inay xoog ku qabato xal kale markaa muu hayo wuu cararay cagtuu miciin biday inuu ordo oo baxsaduu isku dayay isagoo ordaya iyana ay eryayso oo marada dhabarka ay dilaacisay ayay odaygii guriga lahaa ku kulmeen albaabka markay albaabka ku kulmeenna arrintiiba way rogto waxay tidhi maa jazaau man araada biahlik suu'an ilaa an yusjana wa cadaabun aliim waa maxay abaalmarka bay tidhi ninka reerkaaga xumaha la doonay in la xidho oo boqorka waddanka ama madaxweynaha waddanka haweenaydiisa lagu yidhaahdo ama waad la cayaaraysaa ama waa lagu xidhayaa hadduu boqorku xidhana si aad uga soo baxayso cidi garan mayso haddaad boqorku xabsi kugu rido si aad uga soo bixi doonto iyana wax la garanaya maaha halkaa markay joogto nebi yuusuf rabbi buu ku noqday ilaahay buu baryaya muxuu ilaahay weydiisanayaa rabbi الsijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh iyadu fadalika aladii lumtunanii fiih walaqad raawatuhu can nafsihi faاstacsan bay tidhi walain lam yafcal maa aamuru layusjanan haddii waxaan rabaa uu samayn waayo bay leeda waa la xidhi kuwa la dulleeyena wuu ka mid noqon haddii lagu yidhaahdo xabsi iyo kala dooro hadda ma aha dumarka dhulkooda maraya iska dah halkan waxay joogtaa xabsi iyo qoyska boqortooyada inaad la tumataad kala dooranaysaa nebi yuusuf markaana xabsiguu doortay inaan rabbi caasiyo ayaa wax walba ka xun buu leeyahy saa daraaddeed wuxuu leeyahy rabbi الsijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh ilaahu xabsiga ayaa agtayda lagaga kalgacal badanya waxay igu yeedhayaan inaan xabsi galo ayaa ka roon buu leeyahy ilaahayna subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamayaa marka weliba wuxuu uhi wailaa tasrif canii kaydahun asbu ilayhina waa kun min aljaahiliin ilaahu haddaanad makrigooda iyo khiyaamadooda iyo dhagartooda haddaanad adugu i dhaafinin waa i lagdayaan buu leeyahy aakhirka hadday dhacdo taasina wax magaratadaan ku biiraya yaa jaahila qof kastoo ilaahay caasiyaa jaahila jahligu macluumaadka maaha cilmigu macluumaad madaxaaga ku jira maaha cilmigu waa dhowrsan waa inta aad ku dhaqantaa cilmiga intaad rabbi kula weyn yahay ee aad maxaarimtiisa ka gaabsanayso ee ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nimco ku siiyey aanad uga abaalgudayn inaad macsidiisa ku samayso saa daraaddeed buu nebi yuusuf wuxuu leeya ilaahu xabsiga ayaa dhaamo waxay igu yeedhayaan haddii aanad adigu i dhowrinna waa jabaya ilaahay wuxuu leeyahy faاstajaaba lahu rabbu fasarafa canhu kaydahun ilaahay ducadii buu ka aqbalay ducadii markii laga aqbalay maxaa loo sameeyey xabsigaa la geeyey idan ducada laga aqbalay waa maxay xumaha iyo xabsiga xumaha xun marka kan xabsigani waa xal
وحماها إلهي سودا فيه دبتنا حبسا لك حبسك إلهي سيدا فيه يوم حلقة دقي مضح الله وكان نقضي وزير كوضك كتليه لو مركي دبي قاعدي ودور سوري ودور سنة طريقة كانتي أفرتي